ducfadii toddobaad oo ardaya ayaa waxay ka baxday madarasada xifdinta qur-aanka ee Daarasalaam ee ku taalla magaalada Buuhoodle waxaana hoteelka weyn ee Cabdiguray Balance ee ku yaalla Buuhoodle lagu qabtay xaflad si heersa loo soo agaasimay ka soo qayb galeen cuqaasha waxgaradka qurbajoog iyo waliba madaxweynaha maamulka Khaatimo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo isagu ardayda guddoonsiiyay jaayisooyinkii loogu talagalay ugu horeyn waxaa ka hadlay Maxamed Aadan Cali oo isagu ah macalinka malcamada gacanta ku haya dhinaca kalena waxaa ka hadlay Cabdirasiid Xaasmad Culjo oo ka mid ah cilmiga gobolka Cayn waxgarad aad u fara badan iyo waalidiin gabagabadina waxaa ardayda jaayisooyinka guddoonsiiyay madaxweynaha maamulka Khaatimo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo u rajeeyay ardayda guul iyo inay sii wataan waxbarashadooda quraanka kariimka ah astaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'uudhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام مركز روحان كل دارنا مدرسان كنوحن نغير وردار بان كبحينا تا مركز حكتا waqtiga uu yar yahay insha Allah yaro ko kooban balaaran doona qofka koowaad xafladda ka maanta u fadhino oo ah arday ka qaybgalay madrasada Daarusalaam oo shan arday ah waxa kale oo baaran arday shan ahayd mid bayaan xanuunsan oo hadda naga maqan waxa jooga afar saddex wiil iyo gabar madrasku markii ugu horeysay laga qalanjiyay markii toddobaad wuxuu furay madrasku muddo 3 sano ah ama bila ugu dhamin loo bilaad meelaha soo kala Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay sooratay salaam alaykum aan ku dadaalo dhamaanteen marka hore diinta barashada Iiraan ma kala laha marka hore innaga waaweyna aan ku dadaalo inaan baranno oo shariicada iyo diinta iyo quraanka Ilaahay inaan baranno ينان كحشوني ينان كوحسني وحان لنا إنه مركز نفتنا عن كبرون وعن غران كبرون مرلبات كنا عن كتر بينا أولادنا كنا عن غران كبرون هدي إنه نفتنا عن كبرون وعن غران كبرون أولادنا يعرفنا عن برو وحان صوبح دونتو أسرو أهل العلمية وأهل الدين وأهل القرآن أي نقول دون توصلاتي مدرسة دارالسلام القرآن كرامين يسوع الله سبحانه وتعالى أكتسا أي أن معلم كيو أنت الله شقي سبع أشر برجيننا وردوننا الله سبحانه وتعالى عمل كذا خالص أو غدره مدرسة عربي بدن بكاف لحبي علوم بدن بالغدكتي عربي بدن بالقرآن كقرن شبيسي كرامين تاس قرآن كلا كرامين يو وعربي جدا مي حفلة الله سماين يو ardayda maanta ka qalin jabinaysa loo samaynayo waarina aad wanaagsan wax la karaameeyo oo la qiimeeyo waxa ugu fiican Allah subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa iyo quraanka ugu sharaf badan oo ugu qiimo badan waxaan salaamayaa xafladda ka dhacaysa hotel Balance Cabdiguray Balance marka xigtana waxaan salaamayaa culimada soo qayb gashay xafladda quraanka kariimka iyo madaxda sharafta marka xigta maxad Allah istaagay كنا معانا كيا محادث كريم أولادي والناس كانت معك التاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كحول حدينا عن كل شيء أخلاق وصور قفك كلا يقع لنا يوم واحد بديه سكوت العيدمي واحد بديه سكوت الغدوية واحد يقع لنا يوم معلمين كهونا أما جامعها هات أما ملعامها هات كهونا هذي كذي هاي كهرجيجن كهونا هاي كذي برشة الدين في الإسلام كا إلى هذي كذي برشة سهلي وسهلي مقطعين تساق ولا سهلي كساق هذه أتمنى بقدر الله ما تسكين دان الله إلهي بعيد كذي بكرة هذا كذي بكرة هاي موالها هذا أما مامها هذا أما وحي كذي إنه وقف هذا محاضرين كانوا لهم عبدية وكسر كرين لها محاضرين كانوا قبلوا والد محاضرين كوالد كانوا قبلوا حاجة التربية ده تبي وحنا الله بس مدرسين في الله بس هذه التربية ده عروضها تبي محاضرين كانوا قبلوا دين عاديني قال لك سوق لاي قضية
oo siiya maxay ahayd iyaga kalaasiyo gooniya oo galabtiya haddii bikada leeyahay tarbiyaddu ma naqaano tarbiyaddeenu innagu waa inuu ilmahani cabsadaa wuxuu sheegaya waa runtiisa dibikeeda habeenkii odayga la isu kacsan yahay yar kii soo maraba laad buu la dhacayaa dibikeeda leeyahay afxumaa imanaysa